السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صاحبada ku xiran channelka layaabka media ee YouTube kusoo dhawaada asxaabta muuqaalkeena maanta. Xilliyadii hore xayawaanaadka dadka ka cabsan jireen waxaa ka mid ahaa dinosaurka, waayo waxay ka cabsan jireen size-ka dinosaurka, balse xilligan hadda la joogo ma la helayo xayawaanadaas. Haddaba muuqaalkeena maanta waxaa kusoo qaadan doonaa shanta xayawaan ee ugu weyn caalamka oo aadan weligaa arkin. Ka hor inta aanan bilaabin, fadlan like saar muuqaalkan, subscribe-na dheh channelka. aad ayaad u mahadsan tahay. Muuqaalkeena koowaad ayaan ku soo qaadan doonaa raha. Raha halkan ka muuqda ayaa loo diiwaan geliyay raha ugu weyn caalamka. Rahan ayaa dhirirkiisu yahay 13 inji oo dhirir ah. Culeyskiisa ayaa ah 7 pound oo u dhiganta 3 kilogram. Kama duwan rahayaasha kale, laakiin rahan ayaa liqi kara xayawaanada ay ka mid yihiin shimbiraha, malaayga iyo abeesooyinka yaryar. Rahan ayaa boodi kara dhirir 10 feet ah. Rahan ayaa biyaha u gala badanaa si uu u helo malaay uu cuno. Dhulka marka uu joogo wuxuu ugaarsadaa xayawaano badan ay ka mid yihiin abeesooyinka iyo shimbiraha. Muuqaalkeena labaad ayaan ku soo qaadan doonaa qubo. Qubaha badda ku nool halkan inooga muuqda ayaa loo diiwaan geliyay qubaha ugu weyn caalamka. Culeyskiisa ayaa ah 498 kilogram. Seriously? Warun waxaan sheegayo, qubahan ayaa laga helay webiga Amazon. qubaha ayaa badanaa dhib ku qaba madaxiisa oo aad u yar, mana lahan meel uu ku qariyo markuu la kulmo weerar walba. Wuxuu ku nool yahay badda, mana ka cabsado xayawaanada kula nool badda dhexdeeda. Muuqaalkeena saddexaad ayaan ku soo qaadan doonaa doofaar. Ninkan ayaa dhulka dhigay doofaarkan aadka u weyn. Ninkan ayaa aad u nasiib badnaa. Wuxuu dilay doofaarka culeyskiisu yahay 550 kilogram. dhirirkiisa ayaa ah 182 sentimitir. Ninkan ayaa weerar kala kulmay doofaarka, wuxuuna isku qariyay geedka hortiisa ahaa, kadibna wuxuu ku dhuftay 2 xabadood, kadibna waxay dhameystireen markuu dhaawacmay. Sidaas ayuu sawir kula soo galay doofaarka. Muuqaalkeena afraad ayaan ku soo qaadan doonaa bakayle. Bakaylahan ayaa loo bixiyay Darius, ayaa loo diiwaan geliyay bakaylaha ugu weyn caalamka. Bakaylahan ayaa culeyskiisu yahay 23 kilogram. dhirirkiisa ayaa ah 4 feet. Haweeneyda leh bakaylahan ayaa u xanaaneysa si wanaagsan. Bakaylahan ayaa cuna maalintii 1 kiilo oo tufaax ah iyo 2 kiilo oo karooto ah. Bakaylahan ayaa dhalay bakaylo yar oo hadda soo weynaanayo. Muuqaalkeena shanaad waxaan ku soo qaadan doonaa nyaxaas. Nyaxaaskan ayaa loo diiwaan geliyay nyaxaaska ugu weyn caalamka. Wuxuu ku nool yahay magaalka. Ninkan wuxuu sameynayay ila daawada. Nyaxaaskan ayaa badanaa dadka ay ka qaataan sawiro. Nyaxaaskan ayaa ka dib u geysanin. Wuxuu sameeyaa kaliya isdifaacid mar walba. intaasi ayuu ku egyahay muuqaalkeena maanta. Daawada like saar muuqaalka haddii aad ka heshay. Hana ilaawin inaad subscribe saarto channelka, lana wadaagta asxaabtaada. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.